في كل وقت واحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودلي دبد بيدين كسلام السا ومدر جيبوتي واسسك داغو وبريك نيوز وخبر عاجل ودعدا إميكا دعداي أوساكا لغا وريستي BBC دا عاق إسماعيل wuxuu ka dindimiyay iyo wixiisi ila waxay madayse waadi la dhageysan doontiin waxa kale oo iyaduna aan idin wadaa xaafadii Turwa oo laga been abuurayo iyadana waadi la maqli doontiin waxyaalaha aan anigu dhaliilo amba aan arko in doonayo inay ummadii la wadaagto waa kan dhageysta wax badan ba xagga idinka ifaya caaqa dhagihiisa iyo afkiisu isma maqlaan soo dhageysta waa kane dhageysta BBC dio wareysanayso isagoo wax ka dindiminaya ila dhageysta waa kane haduu hadlaya anigu ma doonayo dadka ay u qasaya runta daasheego oo dadweynaha ayaantiidooda aanoonan weli hadlin u kaadi caaq Ismaaciil beenta iska dah aanoonan weli hadlin ayay dadweynaha maaha dadweynaha adaa kiciyay adaa olola kiciyay adaa ka kacayiri markii lagu sheegay lagu yiri ma soo dhigan kartid ku soco waxba dadweynaha beenaha ka sheegin dalka waa lagu la joogaa lagama maqnay ku soco BBC da beenta u sheegtay oo baratay ku soco laakiin BBC du ka qoramayso xaqiiqda way ogtahay BBC du wax walba ogtay dadweynuhu waliba dhalintu ay tiri joog dhaqaaqina igu tiri baan iyaan u soo dhig dhalintu waatay ma askartii madaxa xiirnay ee soo dareertay ee sawiradoodii keenay ee garanada cadcad u soo gelisay ee ciidamo beeleedka haya gaardakoodka iyo jeertu u badnaayeen waayo ciidankii afartii magafa xakumay booliska aha waa ay dhalinta soo baxday dhalinta shalay aad xidhxidhay ee shoomeerka ahayd maaha ee doonaysay shaqada ee adiga xafiiskaaga laga horguray maxay ahaayeen kuwaasi dhalintii aad u ballan qaaday maaha weligaaba ballanta ma ofisid ballan darrida waa waxaad caadaysatay oo taqaano naguma cusbe ee ku soco maanta ha lagu maqlay ceebtaada inaan mar ugu dambeyn haddii alla yidhaahdo aan samayno inaan maxaad oran mar ugu dambeynta markii shanaad dheh maxaad afka ugala maagi markii shanaad baa soo dhiganayaa dheh oo wadnaheedii iyo kartideedii iyo yeelo raganimadeeda markii u dambeeyay waa markii shanaad adduunkana kama dhicin shan goor nin soo noqda adiga hortaa lama arag tanise waa taa shanshada kaga jabaysay ku soco joogo shaqada wixii yani qabiya naga sii dhamay mansab jacayl iyo madaxweynenimo wax danahoo gaarahoo aan ka doonayahay ma jiro waan gaboobay shaqaduna dhalinta ay ku wanaagsan tahay wixii barnaamij waa idinkaa maqlaya mansabnimo iyo dowlad jacayl baad u fadhidaa kursi jacayl baad u fadhidaa sidii birlabteed ku degantay waanad gabowdo waad is ogtahay waad isku darsantay taasi been maaha waad gabowday oo waad gabtay hawshaadii xilkii lagu dhiibtay waad ka soo bixi weyday lagu igmaday boob iyo dhac iyo tuugo shaqada dadka ugu yeedhaysa aaway maalgashigu waayo waa adiga afartaad keenatay maalgashiga aad noo sheegaysa ee Djibouti ku intifaacsadeen waa kee dee BBC dan aad u waramayso way ku ogtahay xaqiiqdana way ku fadhidaa marka ummadda kala xisho beenta cimri tagay ceeb laguma sagootiye kursiga waad jeceshahay waanad isku ilaalinaysaa dambiyada ku yaalaanad kaga dhuumanaysaa u sheeg runta ninka maxaa beenta ugu sheegi ku soco anagaa sheegayne socdaalada iminka hawshu way badan tahay barnaamijyo aad u fara badan baa noo qabsooday haddana kuwa aan ku dhex jirnayna kaba sii wax allaaliya wax kuu qabsoomay ma jirto afarta kugu xeersan iyo afarta kuu dhow iyo afarta adeer iyo eedda loo yahay waxaan ahayn oo wax u qabsoomeeni ma jirto 99.9 reer Djibouti waxba ma haystaan waa sabool waa gaajo waa cayd ma annaga indhaha ciidna kaga shubi caaq Ismaaciil meel walbood ka hadasho waan ku daba taaganay xaqiiqdan horgeynaynaa albaab walbood been ka sheegto markaad ka soo baxday anaguna u dhiibaynaa runta ma adaa oran kara waxbaan qabtay ma adaa oran kara 22 ka sanadood eed maanta taaganteed waliba tii shanaad u soo xaydan tahay dalku guntu ka dhacay waana beec iyo xaraash marka anaga been ha noo sheegin ku soco alagu maqlee shaqalaantu waxa weeyaan wax jira laakiin sida loo dhigayo ma aha shaqadu dawladdu uuna shaqa ma qaban dawladdu waxay samaysaa soo dhaweyn iyo bogaadin shaqada la'aan baa jirta dawladdu qolo iyo qabiil iyo qurun iyo docayn iyo nin jeclaysi bay shaqada ku bixisaa aqoon iyo degree iyo paragraph iyo background kuma bixiso taa waan isla ognahay waanad ogtahay adu
allana waa ogaya anna waan ogahay maxaa beenta ku fali maxaad beenta ku fali ciidanka hadday tahay waayo wacay subag leh adeeru ma tihid amaagan damaagan maaha maxamed jaamac waayo marvin gay adeeru ma tihid armedaleerku waayo wihiib adeeru ma tihid maarinka ninka xalana la yidhaaho adeeru ma tihid kulli ninkaa qura wihiib baa ka ah nin reer jabuuti inta kale shalay bay dhulka yimaadeen ciidan iyo calanka nooma dhalan adaa meesha keenay oo qabiilku keenay dowladdu waxbay bixisaa bukle dowladdu waa dadka dhabarka ka jabisay ee hantidii iyo maalkii dalku lahaa 4 wiil oo adiya adeer loo yahay inta lagu sooray lagu leeyahay dowladdu waxba ma bixiso ayaa xisho waan ka dheergnay xisho ku soco magaranaysa ay tirtirsiiso maalgeliyayaasha ama gudaha ama dibadda wixii anagu aan qabanayna 67 iyo baan ka dhiminay oo maxaa tirtirsiin waxa tirtirsiisa waxa aad wax u qabataa waa inta adiga ka agdhow ee kula majaalista ee kula fikira ee dalka dhacaysa ma adaa wax tirtirsiya ma adaa caruurta yaryar u sirbaxa ma adaa dadka maaragtay cadaalad u eega caaq ismaaciil horaa lagu ogaa maantana xeedhiyo fandhaal way kala hadheen ku soco ceebtaadii way iftay waxaad tahayna annagu fagaaraha waa ku keenno waa ku barnay inta kalena waa la keenay BBC da beenta u sheeg BBC way ku og tahay de atanna ma joogna imika haddii alla yidhaahdo dalka Jabuuti doorasho ayaa kusoo foolay bil kadib waxaana sanadkii 2014 jiray heshiis idinka iyo mucaaradka wada gaadheen oo dhigayay in dhinacyada siyaasadda isla soo dhisaan guddi doorasho ka madax bannaan wasaaradda arrimaha gudaha mucaaradku waxay ku andacoonayaan in heshiiskaasi uu dhanka dowladda ka socon waayay maxay tahay sababtu waan gudbaalnay raggaas anagu sida loo sameeyo 49 markaad ka soo bilowdo waa beentii 49 bisaga doorasho ku jiray bisaga doorasho gali jiray waa beentii 77 buu madaxa la soo kacay intii hore dayday dhulka iska taagan buu ahaa markii 74 shaqada laga eriyay muxuu dadka beenta uga sheegay 49 taariikhdeed Jabuuti kaga jirtay caaq Ismaaciil maxaa beenta ku fali waa footay 49 bal magaalo dhageysta anaga food ku jirnay foodna kuma ajirin lagumana aqoon meelaad sumcad ku leedahayna ma jirin taariikhda meelaad kaga jirtayna ma jirin kuwanaad leedahay mucaarad tayale maaha waa kuwa aad biqistay oo cagta hoosteeda gelisay oo xuquuqdoodii iyo xurriyatul qowlkiiba ka xarintay ma adaa oran kar mucaayarad talayari ma jiro way jiraan ragii ku bedelayay way taagan yihiin iyagoo aqoon iyo cilmi iyo karti iyo raganimo leh intooda badanna waa disho gacantaadaad ku khaarajisay markaad naftaada uga yaabtay waad khaarajiso waad ogtahay marka maxaa beenta ku fali ma haynabu kuleey waa mucaarad tayale way joogaan laakiin wax kula soo dhiganayo tuuga mooyaane maanta ma helaysid ku daacada waa lagu wada nacay khalaas intii daacadda ahayd way kaa fakatay waa lagu bartay laakiin ku aad siiso garaamo oo kula soo dhigta waan u fadhinaa annagu maanta haddii ilaaha yidhaah ku soco u sheeg beenta BBC da way kugu taqaanaa maanta doorasho uma ku jirna waxa aan yani wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka shaqeysa waxaasi guddi madax bannaan uu jira uuna jiri jiray heshiis weligeed guddi madax bannaan inta aad timiday mana jiro beenaale faajira kaahinaad tahay goormaad guddi madax bannaan samaysay goormay doorasho xoroo xalaali ka dhacday waxaad boobtood maroorsata mooyaane goormadee taariikhdaabay doorasho xoroo xalaali dhacday nadhe dhagahagii afkaagu isma maqlaan nadhe waa kana dhagaysta reer Jabuuti qurunkiisii baa maanta socday dadkaasi aad sheegayso aan la samaynayna kuwa anagu aan ka baxnamayna ayaga unbaa ka baxa mar walba kolka ay arkayaan inaanay u suuroobaynin inay wax helaan ayay durmaan qaataan oo xagee ugu suuroobayn way u suurowday ood boobtay ood maroorsatay ood 100 goor u suurowday ood 1 goor u suurowday shalay ma hayna la u naxariiste Muuse Axmed ninkii aad ka maroorsatay ma adaa oran kara waa lay doortay waa muquunin iyo boob baad ku fadhidaa meesha iyo burcadnimo cid ku jecel oo ku doonaysa ay ma jirto raggan aad leedahay waxba ma hayaan way hayaan kartideedii way leeyihiin ciidan iyo calankanna way kaaga lex jecel badan inuu dhulka u dhasheen mucaaradka aad ceebeynaysa beenta ka sheegayso kuwa gaar kuwa ajiro adiga jeebtuuga kugu jira mucaaradku iskuma wada jira been ha ka sheegin kuwaaga sheeg oo noo sheeg kuwa adiga kule maartay ee shaqaysta waa anagu nahay annagaana dibadda keeni doona haddii ammaanada la haye
walba ka qaydiyaan kolka meelaanka kaalada la yidhahdana etimada lama arko oo tayo leh dhalaarta ay doorasha imanaysa bay yidhahdeen waxaan nahay xisbiyo waxaan nahay mucaarad oo sidaas waxba laguma xiro wax tayo leh ma jiro buu yidhi carabkiisa waa idinkaa ka maqlaya hadalkaa uu ku celceliyaa mucaaradow maanta ninka la soo dhigta ee u xalaaleeya mandaaga shanaad waa khaayimal qaran ma ogaanteed lahaada waa khaayimal qaran ninka maanta la soo dhigta ee u xalaaleeya ee ka foojignaan waaye qurunka u wado cayda iyo ceebta idinku wado idinkoo og maanta ul kala dhuunta ee u xalaaleeya qarankaad waxu dhinteen ogaada waad dambiile qaran baad noqonaysiin dambiile qaran baad noqonaysiin oo wakaa dee afkiisa ka sheegaya ma dhulkaan bay ka qaylqayliyaan halkeedu u ogoshahay maadaaba u ogol waxaaba diidan tahay banaanbax nabadaysan oo lagugu tusay inaan lagu rabin baad diidan tahay banaanbax ninka diidan ma xorriyatul qowl buu ogolaanaya mucaaradka lugta hoosteedaad gelisay mucaaradka edag baad ku xidhay mucaaradka waa dulmido waa dullaysay uma ogolid xaq uma ogolid cadaalad markaa maadaa hadli karaa waana la soo bixiye car hadday raganimo kugu jirto carkee caaq ismaaciilow ogolow banaanbax nabadaysan adiga waa laguu soo baxay mucaaradka ku nacay iyo shicibka ku diidan een ku rabin ha soo baxaane ogolow car haddaad nin tahay ilan waad asaasaqdo waad isog tahay ku soco maanta sheegeen hay'adaha xuquuqda aadanaha dowladdaadu waxaa la sheegaa inaysan wax dulqaada u haynin dadka dhaliila siyaasadaada oo haatan dadka idin xiran waxaa ka mid ah Fuad Yuusuf siyaasiyiintii mucaaradka ugu tunkuweynaan oo waddanka waabay ka carareen marka doorashada xalaasha ah ayaa doonaysa in dalka Jabuuti ka dhacdo maxay tahay dhegeyso waxaad aragtay dad bilaa cabasho amyada qoys ku lahaatay haddaad dhex joogsato waad helaysaa qof cabanaya waddanka looma joojiyo waa la wada cabanaya qoys ma cabanaya qaran baa cabanaya afkaaga qoys baa ka batay waayo madaxweyne qoys baa tahay qoys baad ku leedahay cabasho male qarankoo dhan baa cabanaya qoyska problemka familiyaalka ee reeraha dhex yaalaad example usoo qaadanaysa war qaran baa laga hadlaya caaq ismaaciil qarankan baa laga hadlaya cabashadiisa ciidan iyo calankan aad adigu goonni u leexsatay toomi u xalaalaysay baa laga hadlaya markaasaad ku leedahay mucaaradkii way kaaga yaaceen waa run wuu og yahay ninka BBC-du aawe mucaaradkii soo kuwa dibadaha wada fadhiya ee hadday soo galaan aad u goynayso maaragtay gabood sidee aniga layga hadliyo sidee aniga wax layga sheegay aad dadka ku laynayso eed qaar badan ku dhammaysay gabood eed qaar badan ku laysay gabood ma adaa hadli kara ma adaana odhan kara madaxweyne qaran baan ahay waxaad tahay khaayimal qaran laakiin salduus baa ku sugaysa lagaana hadhi maayo waanan kaa tashanay kumana rabna adduunkuna hana maqlo waana soo baxaynaa indhahaago shana talabaadna qof dembi galay lahaynaanan la xilin meesha ay ka timidday ma garanayaan daraarta uu nin dembiilo noqdo ayuu siyaasi noqda weligii isagoo siyaasadna arkin caskari ah shaqaysta daraarta uu laguma odhan dee Fuad Yuusuf cali waa maaragtay waa siyaasi laguma odhan baadil buu u xidhan yahay wuxuu u xidhan yahay inayna kaad adeerka u tahay laakiin kii ku tacshiriday ma xidhna kuwa dalka dhacay ma xidhna kuwa dalka dhibaatada ku haya ma xidhna inankaa yara miskiinka wiilkaaga caynaasho la-eg ayaa doonaysa wuxuuna ahayn inaad sanka ka geliso dee kaama yeelayna anagu kaama yeelayna BBC daad ka hadli waan kaa daba hadlaynaa gaaladaad u dhuuman waanu sheegaynaa malafkaaga waanu dhiibaynaa meel walba cagtaan kuu saaraynaa ilaa aan gabood ku geynana kaama harayna caaq ismaaciile ku soco beentaada hala bartee dambi uu doontay uu sameeyo uu dalka khiyaameeyo uu xoolay dowladda jajabiyo oo uu dad laayo ayaa lagula aaway Fuad yuu dilay dadkuu laayay xoolaha dowladdu jajabiya aw isagaaba mushaharkiisa idinkala ah ood mushaharkiisa inankaad adeerka u tahay wihiib ee aad ciidamada cirka u dhiibatay mabuutu seesasheeka wihiib baan hays ayaaba mushaharadiisa xalaalaystay markaasaad iminka doonaysa Fuad inaad ka dhigto dambiilo wax jajabay Fuad waxba ma jajabin waxna ma dhicin waxna ma dilin gacan ku dhiglana maaha adaa gacan ku dhigla inta aad wadataa gacan ku dhiglo oo la wada garanaya maxaad inanka yar khamiisuuna lahayn ugu gelin sanadku dhow buu xidhan yahay maanta uuna waxa wuxuu sameeyay cid wax u dhimay jirine maxaa sababay de waa qabyaalad iyo qurun u sheeg BBC-da qabiil baan ahay dhaha naga odhan naga qaran baan ahay kolba qolayska cayda waa taqaanaayo caydu waa cad qonnimo wana cadkaaga adi waa caydu waa cad qonnimo wana cadkaaga adi kaalush eed ummadoo dhan ku kala kaxaysay eed ragga asaagaaya ee ciidan iyo calankan u dhashaad leedahay tayo male adu tayadeed leedahay adigu tayadeed leedahay kee tahay adu nolol maxaad ka tahay taariikhdaadii waa la soo qaadi waa la keeniye ayaa fadhiiso meelo dadka ha caayin
هنعاين معارض كيغنا هنغا عاين عيداد دافت الشيخ يا شريف ملهه عقتاد ودا مريسay dhiigoodii baad xalaashatay xaqoogii baad xalaashatay ma ada hadli kara ku soco hal lagu maqla maanta wuxuu yahay siyaasi ee soo daaya mana qonaysa dhisada cadaalad baa jirta halkaa baa la geyn garsoorka waxa uu ciqaab garsoorka sanad keeni waaye garsoorka sanad la horgeyn waaye garsoorka xukun ridi waaye garsoorka aad adigu u sareysay laada maxkamadda u sareeyay xaakinada adaa u sareeya la soo dhaariyay adoon lagu dhaarin bad xaakin tahay qalkaaga fadhido saa doonto maxkamadda ka yeesha aw maxkamadda xorta ee xalaashi aw garsoorka xorta ee xalaashi garsoorka adiga ka shidaal qaata miyuu xukumi karaa dad waxa aad adigu ku amartoon buu noqdaa xukunku laakiin fuaad waad u dhiman waanad eeday haddada aan kula hadlayo dhammaantayana fuaad baan naho kama harayno gabasaan naho kama harayno dhalinta Djibouti oo dhan ee xidhan baan nahay ku soco ceebtaada ha lagu maqle sagaal anagu mari ugu dambeyntii markii madaxweyne sanadkii 2011 waxaad sheegtay inaadan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalka Djibouti inkastoo wixii ka dambeeyay aad u tartantay haddana aad u hanqaltaagayso dalka Djiboutina waxa toddobaadada la soo dhaafay ka dhacay dood waxay dadku ku dalbanayaan inaadan mar kale soo sharaxin goorma dadka kale fursad siinaysa ay maadida doorashada ma kaliya ma dhigtaan ama doorashada kaliya anigu ma dhigto ninkii imaayayna maadaama waa u furan yahay shan noqdaan toban noqdaan indii kartay ma jirto meesha 12 uu yiri dema soo noqonay maanta waa kan xaydin ma kaliya baan dhigtaa kalidii buu dhigtaa afar uu samaystay buu u yeedhaa oo la dhigata doorasho xalaali ma badhicin afar qof uu samaysto laba qof uu samaysto lacag siiyun buu ilaa soo dhigo kaalay ansixi doorashada shanaad yaadi ma kana orante sidii kuwii hore baad oranaysay laakiin maanta way israaceeno ka ku ansixiya ee kula soo dhigtaa ilaahay suul gaabtay ha ka dhigo ilaahay suul gaabtay ha ka dhigo qaranku wuxuu dhimay qaranku qaayimaya ka maanta adiga kula soo dhiganaya waanan ku nacnay ufuuf baan ku niri kumana rabne iska soco kuma rabne xilka dhig xal ma hay sida xilka wareeji madaxweyne qabiil baa taa qurun maartay doonaya dadka inuu ku maale laakiin waan ka diidnay reer Djibouti waa idinka maqlaya mucaarata yale mala wili dadka u dhuumanaya doonaya inay u xalaaleeyaan mandaaga shanaad qarankaad wuxuu dhinteen oo waad khaayinteen qaranka ogaada dambiilayaal qaran baa la idin kula xisaabtamaya dambiilayaal qaran yaa la idin kula xisaabtamay idina deyn mayno hadii Ilaahay yiraahdo amaanada la hayo ogaada lama soo dhigan kartiin aaqa reer Djibouti ogaada ninka ina khaayime u xalaaleeya waa dambiile qaran waan ku tashanayna taa markaan ka socdo xaafadii Turwa ahayd ayaa ceebi ka dhacday xaafadii Turwa ahayd ayaa ceebi ka dhacday waan idin dhagaysiin waad ila maqlaysiin Umar Naala Tuur dhagaysta wuxuu ka dindimiyo reerka Turwa waxaan ku xigsiinayaa hooyooyinka xaafadda iyo dhalinyarta xaafadda ugu dambeyn waxaan xoog u salaamayaa hooyooyinka maanta si fiican meesha noogu soo dhaweeyay ee halkan dambe fadhiya anigu hadalka nii badin maayo waan nii soo wargaabinayaa waxaan doonayaa inaan midun nii sheego waxaan doonayaa inaan mid ku adkeeyo aan si fiican nii fahamsiiyo inaan mid un nahay inaan laba amba saddex reerood rahayn reer Turwa waa mid maaha laba maaha saddex reer Turwa waa mid xisbigeenu mabdi'iisu iyo asaaskiisu waa farta waa mid idinka ila maqlay xisbigeenu buri waa farta de waa reer fartaag waa fartaag waa xisbigeenu waa mid buri waa Umar Naala Tuur haddana waxaan idin maqashiinayaa Ilis Afbuur hadalkuna markaas uu dambeynay waa farta buu yiraahdaa xisbigeenu waa farta waan ogahay oo xisbigu waa far de Soomaalidu waxay tiraa far quri fool ma dhaqdo macnahaasina waxa weeyaan xisbiga iyagu waa fartaayo waa annaga waa iyaga waayo wad maqli doontiin iyo dhageysta Aamin Afbuurna waa tan kaalay dhageysta waxaan doonayaa inaan horta cabiro shucuurtayda aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay horta kow inay maanta tahay 4 Maars oo tahay maalintii aan u dabaaldegaynay xisbigeena talabaad waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkan ku wada caweynayno
aamina iska daa beenta xisbigii kaad maars aqal buu ku ururay de RBB waa ta aqalka ku ururtay kaad maarso tii loo caleemo tumayay ee loo soo baxayay inaad iyaga ka mid tahay da waa xaafadiinni waa la garanayaa laakiin xisbigii maanta uu dhicisoobay kol haddaad aqal ku ururteen oo sandaqada ayar iskugu timaadeen oo idinkoo reera halkan aad ka dabaaldegaysiin marka aamina ayaan daradaasay la soo joogsatay aamina intaasay tidhi haddana waxaan idin maqashiinaya ku kaloo shiina la yidhaaho baryahan guuxiisa ka dheereeyay isna waa kala dhegaysta waa habeenaynu xusayno 42 jirkii xisbigeena uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeye xisbigaasi oo aasaasay ilaahay u naxariistay aabihii gobonimadan keenay ilaahay u naxariisto Faataxada Maxamed Doonaaya xaaji xasan guuleed abdidoon waa xaflad weyn waxaynu isku nimid waa xusida xafladan isku nimid waxaynu ka faa'iideysan doonaa insha Allah bacda 20 cishana waxa weeyaan vote-kii baa soo socda waa in kaararka la qaato waa in la voteeyo muhiimaduna waa idinka maqlay ku kasti wuxuu leeyahay waa in kaararka la qaato war kaararka lama rabo de kaararka lama rabo dadku waxay cunaan beelay maxay kaar qalalan ku falayaan 20 kun ciyaalka yar siinaysiinad beenta ugu sheegaysan ciyaalow 20 ka qaat waa xaqiinii oo ka gaajoonaysan qof wala lacag la siiyo waa waxaaga qaado laakiin damiirkaaga ha iibsan aqligaagana ha iibsan waad arkaysaa dalku uu ifay kuwani wayna dhaafayaan waa xaafadii Turwa saddexda soo hadashay waa Cumar Naalatuur waa Aamina Cabdi waa Shiina yaa u dambeeyo idin maqashiin ma waantowda ma weynaato iyadana waa tan kaalaya ila dhageysta iyadoo meelaha ka dindiminaysa waxaan ogahay hay'ad waxaan ogahay bay dindimisaa wax badan bay dindimisaa wax badan bay sheegtaa waxayna dadku sheegin oyna shaqo ku lahayn bay sheegtaa marka ayaan darida ummadda reer Jabuuti haysata ceebta ummadda reer Jabuuti haysata foolxumada ummadda reer Jabuuti haysata iyada ka koow ah musuqlay iyada ka koow ah waana taqaanin taas idin dhuuman mayso waa tii aad weligiinba garanayseen waa ma waantowda ma weynaato weeyaan cid kale ma aha marka waxaan doonayaa inaad iyadana waad maqli doontiin iyadoo meelaha ka halaq wax ka siinaysa oo doonaysa inay iska dhigto inay cirkiga dhulka kala hayso wax allaaliya waxay haysoon musuq iyo been iyo fadeexad ahayni ma jirto reer Jabuuti waanad maqli doontiin ma waantowda ma weynaato alladii ma istixi mustareex bay tiraacado alladii ma istixi mustareex waxaan hadalka u leeyahay alladii ma istixi mustareex lama tistixide ma xishoonayso waa tan soo xayden ila dhageysta marka u horeysa waxaan jecelahay horta salaanta islaamka inaan idinku salaamo oo gabigiinba dadweynaha halkan iskugu yimid oday hooyo inamo hablo loo wada dhan yahay inaan idin idhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga caawa waxaa farxad weyn noo ah xaafadii kaartay Turwaayo isku duuban oo iswada jecel oo gacmaha is haysta oo iswada dhageysanaya oo caawa halka nagu soo dhaweeyay waa wax Ilaahay loo mahadiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin beenalay faajirad ka dibad Turwa waad kala qaaday Turwa reer baad ku kala qaaday Turwa qabiil baad ku kala qaadeen afartiina halka soo joogsatay waa wax weeyaan ina Naalatuur waa afbuur waa Shiina waa adiga reer qulaad ka soo jeedin Turwa awde Turwa aw ma afartiina aaway Turwa carabti galaysi aaway cafarti aaway ciisihi aaway gadabursigii aaway daaroodkii aaway habaryoonisti aaway arabkii aaway Suudaanti weer xagee joogan weer they are xagee joogan ma hayno de marka inaad reer tihiin oo farq u tihiin taasana tustayde waliba aad leedihiin 250 qof hadaad 5 qofkiiba 10 qof keeno war 10 baa sheegay qof laguma keenay in Naalatuur waad wada fashilantihiin marka waxaad tusaysiin inaad idinkoo reera oo jifo hoose qaranka doonaysa inaad muqoonisaan waad waalantihiin de Turwa waa qaran Turwa waa ummad isku duuban intiina kama muuqato meesha dadka aad u yeerateena waa intii idinka inila majaaliisaysa intiini ahayd ummadii kale Turwa aw ee cid kasta lahayd ma annaga ciid indhaha nagaga shubaysiin ili aamina afbuur allawduda ma waantowda ma weynaato Shiina oo la yaqaano ina Naalatuur
war waxaa tihiinba waa la hayaa inaad reer wala xaglisaan ood qolo meeshan ku maamulaysaan oo reer turwaa gaajoonayaan guryaana dheriga laga saarin sadaqadii la bixinayaad reer ku bixiseene muxuu ahaa saynaburo iyo amran oo labada turwaa kala oo iyagu shalay iyagoo lugeynaya middo agadamarayaasha waraaqaha ku haysta ayaad ka fadisheen carruurtii turwaa ku dhalatay ma idinkaa dadka wax u sheegi karo hor iman karaa war xishooda dee war wax isku fala dee dadkani way idinka dharagsan yihiin turwaa si fiican bay idin taqaanaa ma waantooda ma weynaato ma adaa turwaa wax u sheegaya aamin afbuur waxa aad aamina ku foogan tahay waad ogtahay aqaladii xaqa ay u lahaayeen baad u diideynaysiteen nasiib ood reer ku bixiseen oo weliba dadaan dalka ahaynaad siisaa ood u saxiixdaa aamina oon keenaynaa faylalkooga haddii ammaanada la hayo taa baad ogtahay ma markaa xishooda oo qarankanaad qabiilka doonaysaan inaad lagu muquunisaan da meesha etaa baraleel kama taliso idinka iyo etaa baraleel waad noo siman tihiin eddaad ku timaadeen ereygaasina way idin dhibaa waa runtay dee eddaad ku timaadeen aw dhalintii kale xaafaddu aw hooyadii kale xaafaddu aw ummadii kaartee turwaa ee cid walba lahayd aw marka aad idinkoo afarna hor yaacaysaan uu shiina u horreeyo turwaa ku kala qaaday qabyaalad shaqa haddii la qoraya waad soo xushaan oo afartiinaad soo xushaan waaryoomiyay weyday turwaa dhalinteeday gaajoonayaan ay afkiiya gacanta isla laayihiin ay gaajo kax yihiin carruurtii turwaa ku dhalatay markaasaad doonaysaan inaad annaka afgobaadsi iyo afdhabaandhab nala hor socotaan waar waa laydin diiday oo laydinma rabo reer jabuutow tashada doorashana dhici mayso haddii ilaahay yidhaaho waanad ogaan doontaa fadeexadda halkaa ka dhacda marka waxaan sheegayaa 40 mushakal ee doonaysa inay dadka beenta u sheegaan waad wada taqaaniin ina naala turwaa taqaaniin oo qadaraasyada la siiyo iyo shirkadaha uu ku jiro isagoo xildhibaanana loo xidho mashruucyada boorkiya meel walba waa taqaaniin shiina iyo mustafa facebook waxay ku shirkoobeen shiine hadda si fiican faylkaaga loo keenaya adoo dhulka halaqlaqloo qandaraasya qaadanaya wax saxiixayana sawirkaaga waa la keeni mawaantooda ma weynaato waad ka dheragsan tihiin wax allaaliyo waxay dalkiiyo dadka u tahay ma leh waa madagaskar wayna og tahay waana keenaynaa haddii ammaanada la hayo aamina afbuur allowdudi waa taqaaniin iyadana maba dhex timaada turwaa way ka faantaa salaanta xaqay la dhaaftaa dadka ay xaafadda kula dhalatay marka allowdudi maxay dadka u sheegi war maxaad dalkiiyo dadka u qabateen adeer nadhaafa beentiina turwaa way ka dheragsan tahay reer jabuutow mari daga allaha dago mar labaadi daga saanaad dagan weeyaan waxaan waad barateen qurunkooga waad barateen beentooda maanta waad aragteen berrina albaabada idinka xidhanayaan marka anu waxaan idin leeyahay turwaayay qaran baad ahayde reer baa la rabaa in lagugu muquuniyo reer fartaag la yidhaaho ayaa xaafadii turwaa ka dilaacay waa 40 iswadata fartaag reer fartaag halkaad farta ku taagayseen taga annaguna waxaan idin leenahay far quri fool ma dhaqdee qaran baa la rabaa adeer qarannimadii waad ka dhacdeen baskii qarannimada waad ka hadheen oo qabiil baad u xagliseena nadhaafa idinma rabna annagu iyo nadhaafa iswada raaca oo ha noo imanina annaga hana hor imanina turwaa baad leediin turwaa gaajo baktigaa xalaal u eeddaa noo eedda maxay ka ogtahay turwaa maxay ka taqaanaa turwaa 4 bay wadataa dilaal 4 dhadhama raac iyo 4 dhuuni raaco idiin soo dirayso maalin warba oo iyagu idinku lacagaystay marka waxaan salaamayaa ummadda reer Jabuuti dal iyo dibad isku duubniyo midnimo kuwan kaga hor nimaadno anigana waxa iga ballana wax walba inaan keeno haddaan ammaanada hayo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh